Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qiimaha badan ee ku xidhan kanaalkan youtube-ka Danjire channel isku soo noqda wanaagsan dhabar xanuunka sida looga hortago ama sida loo daaweeyo intaan u gudagelin fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad video dug soo gaarnaa sii share garaysi like-tan nagu caawisi maxaa yeelay like videogan wuxuu gaarsiinayaa youtube-ka dad fara badan subscribe-kana sidoo kale asagana aad nagu caawisi say walaalaha kalena uga faa'iidaystaan dhabar xanuunka sida looga hortago waxaa ka mid ah qofku markuu fadhiisanayo ama kuraasta ku fadhiisanayo inuu kursigiisa khaldan ugu fadhiisan xagga dambe inuu iska geliyo barkin dhabarkiisaas markaa soo tiirinaya inuu xagga dambe gashado ayaa ka mid ah waxyaalaha looga hortago dhabar xanuunka waxaa kaloo ka mid ah qofku markuu jiifsanayo hadduu dareemo dhabar xanuun labadiisa lugood ayuu wax gashanayaa barkin waxyaalaha sababa qofku inuu dhabarku xanuuno waxaa ka mid ah inuu shay culus si khaldan u qaado oo qofkaas isagoo dhabarkiisu isku jira inuu markaa shayga si xun u qaado waxaa looga hortagi karaa shayga markaad qaadaysay culus inaad ruugaaga soo qalloocisi oo shayga si siman oo dhabarka soo siman yahay aad u qaadid waxyaalaha dhabar xanuunka looga hortago waxaa ka mid ah qofku inuu sameeyo jimicsi joogta oo dhabarkiisi markaa muruqyadiis galay iyo waxyaalaha uu dareemayo dhabar xanuunka uu ka hortagi karo waxaa ka mid ah jimicsiga inuu qofku markaa joogtayo saa'iidiyo haddii inta aan soo sheegnay oo aad samaysay oo dhabar xanuunkii markaa kaa tegi waayo ama uu kugu sii siyaado oo habeenkii aad dareentay xumad iyo dhabar xanuun saa'ida fadlan waxaad la xiriiri doontaa goobaha caafimaadka markaas si loo ogaado waxyaalaha xumada iyo keenay ama qandhada oo baaritaan lagugu sameeyo markaana la daaweeyo haddii ciladii jirto iyo haddii dhibaatooyin ay markaa kaaga sugan yihiin dhabarka fadlan waxaan kaa codsanaynaa videoga intuu kasoo gaaro inaad sii share garaysid like-tana nagu caawis aad page-kana follow soo dhahdid intaan ku kulmi doono video kan lamida waxaan kaga tegayaa fi amaanillah.